السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الرحمن waxaa idin hadlaya su'aalo dhowr ah meesha ku diyaarsaday oo aan islahay aniga waa interesting in dadka la weydiiyo oo banaanka loola baxo Okay. inta aanan dadka ula tegin su'aalaha ka hor oo aysan dadka iga jawaabin marka hore waxaan rabaa aniga ahaan inaan get to know me tag ahaan aan u duubo oo aan aniga uga hadlo naftayda oo su'aalaha aniga aan ka jawaabo balanta su-aasha koowaad oo ah xagee baa ku dhalatay aniga waxaan ku dhashay dalka Soomaaliya su-aasha labaad oo macnaha waa listigii dadkan aan weydiin lahaa aniga aan ka jawaabo qaaradee baa ku dhalatay qaaradee si jeclaan lahayd inaan ku dhalatay aniga waxaan ku dhashay qaaradda Afrika haddii aan dooran karo aniga meesha aan ku dhalanayana waxaan dooran lahaa isla Afrika meel aan isleeyahay hadda tan waa way ka wanaagsan tahay oo inaad ku barbaarto hadda tan oo barbaarkaaga iyo caqligaaga xilliga meesha uu taagan yahay uu taagnaan lahaa dad ku dhalan lahayd ma jirto saa darteed aniga waxaan isleeyahay Afrika okay su-aasha xigto dadkana weydiiya aan isleeyahay waxaa waaye tobankaagii sano oo igu horreysay xagee baad ku qaadatay qaaradee ama dalkee se qaaradee ama dalkee baad jeclaan lahayd inaad ku qaadan lahayd Afyeen fal bro su'aalaha adduunka waayno. aniga waxaan ku qaatay tobankii sano ugu horreysay qaaradda Afrika gaar ahaan dalka Afrika ku qaatay qaaradan jeclaan lahaana wallahi su'aal muhiim waaye aniga waxaan u maleynayaa dhinaca waxbarashada tobankii sano ugu horreysay meel lagu qaadanayo Finland aan leeyahay Arfiilan saxa oo 10 kilomitir u jirta meesha ku dhalatay. dhinaca waxbarashada ahaan iyo haddii loo eegayo sababtoo ah waa aad bay ugu dadaalaan ilmaha inay aad wax u bartaan iyagoo aanan imtixaan iyo waxyaabo noocaas aan aad ugu mashquulin meesha dalalka kale weliba u dhow dalka waaweyn sida Denmark iyo Finland iyo Holland iyo Faransa Finland aad iyo aad bay ugu dhaaftaa waxbarashada anigana hadda tan aan ka jawaabayo would you like to die alone maxaa jeclaan lahayd dhimashadaada xilligeeda markay imaato haddaa adiga dooran karto inaad keligaa dhimato mase idinkoo group ah ama macnaha idinkoo laba ka badan aad dhimataan okay aniga ahaan aniga waxaan isleeyahay waa keliya ku haystaa aniga alone keligaa dhashay keliga inaan okay su-aasha xigta dadkan inaan weydiiyo aan rabo waxaa waaye dalka aad adiga adduunka ugu jeceshahay ama ugu wanaagsan aad isleedahay dalkee waa fikir ahaantaada ani ahaan waxay la tahay dalka ugu wanaagsan adduunka private aniga ma garanayo mar kale aan ka jawaabaya dalka ugu xunna aad isleedahay maxay tahay aniga naftirkayga waxaan isleeyahay dal hadda ma jirto ugu xun oo aan sheegi karo maxaa la dhahaa dalkaas adduunka ugu wanaagsan iyo dalka adduunka ugu xun oo qofka uu sheego markaa maxaad kula talin lahayd inay ama hagaajiyaan ama ay bedelaan haddii ay kula tahay su-aalaha su-aalo interesting ah oo dadka banaanka la weydiin karo oo aad adigana wax ka dheefi karto fadlan like share iyo subscribe haddii aad meeshaan ku cusub tahay gambalaalka furo si barnaamij walba aan soo geliyo hadda kadibna aad ula socotid haddii waxyaabaha noocaan oo kale tahay xiise ay kugu hayaan waxaa idin leeyahay Cabdi Raxmaan meesha joogtaa waa سؤال حميدة أديك يا السلام عليكم ورحمة الله سؤال وبركاته سويديني